Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Abdi ayaa maanta kulan la yeeshay wafdi ballaaran oo ka socday xisbiga talada dalka Koonfur Afrika haya ANC. Madaxweynaha iyo wafdigaasi ka socday xisbiga xaakimka haya talada dalka Koonfur Afrika ayaa ka wada hadlay sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska afayeenka madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland arrimo badan oo salka ku haya xoojinta xiriirka labada dal iyo labada xisbiga xaakim ee kulmiye iyo ANC ee dalalka Jamhuuriyadda Somaliland iyo Koonfur Afrika. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Abdi ayaa sidoo kale xubnaha wafdigaasi ka socda xisbiga ANC waxa uu ka gudoomay salaan ay uga sideen madaxweynaha dalka Koonfur Afrika. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland waxa uu diray salaanta lamida madaxweynaha Koonfur Afrika waa sida lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi ka soo baxay xafiiska afayeenka madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland. Gabagabadii kulankaasi waxa uu ku dhamaaday sida lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi is-afgarad buuxa iyo xidhiidh hor leh oo u dhaxeeya labada dal. Ahmed Nuur Ciise Maxamed Bulsho TV Hargeysa.